qofka sooman marka uu afurayo duco ayuu leeyahay aan la celin haddii aad alla barido wax alla wixii aad weydiisato ilaahay waad ka helaysaa marka inaan fursadda la dayicin oo aan waxa weeye saambuusaha iyo timirta un lagu maqnaan iyo sharaabka ayaa muhiim ah alxamdulillaah rabbil caalamiin العليم العلام والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وعلى أصحابه وأتباعه الأعلام أما بعد إلهي بأمهال سبحانه وتعالى نسور قلية كلان كان وحكرا ينانو مهلقا يا لن يرتا يعلم ماذا سوق مقابسة كلان كان وحنا جعلان ليلة سود وهتان بارك الله فيكم مدام إنه أرضنا هاي أما طلاب العلم ضد علم الشرعي قبرانية وحلقة مارمانة إنه قرش سناته وحي إنه رمضان قبل الحين عمل خيرية وأي رمضان تو فرصة آدي أدوين أو أي نادر تهي إن فرصة نوع عاصو كلاء قفك وهلا أنت وتشوجو أدوك مركز تو وياهي السنة النولا يقفك رمضان أي كتيرتو هو مركز تو فضل يراد وياهي كوجل الله سبحانه وتعالى وذكرنا سان حديثي لبضين إن مرسو وضع إسلام أمي وجهادي لبضو دبا انت جهادين مد جهاد كله قد لي مدينة وحويان وكسي دبا نولاday sanad ka bacdina riyal lagu arkay kii sanadka ka dambeeyay oo jannada ka horgalay rasuulkiisa mujaahidka ahaa ayaa kii sanadka ka dambeeyay ee shahiidka aan ku dhiman isagu oo jannada ka horgalay rasuulka markii la weydiiyay kaleey salaatu wasalaam riyada fasirkeeda waxa uu yiri alaysa qad sama sanatan ba'da maanu isagu soon maanu sanad soomin isaga gadaashi waxay ku tusinaysaa in waxa la isku dhaafayaa ee lagu kala tagayaa bisha Ramadaan ay tahay Ramadaan walaalayaal waxay ka kooban tahay saacado waa saacado tirsan iyo daqiiq maxduuda haddii qofku aanu ka faa'iideysan markaa oo uu dayaco waxay ku noqonaysaa markaa mid uu ka qoomameeyo maalinta qiyaamada yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim waxa loo baahay horta ugu horeyn inaynu ogaano dhalinyarta inay mas'uuliyad gaar ah isa saaraan oo aan isku arag dad yar yar oo aan cibaado iyo amal saalix midna looga baahan ninku kul haduu 15 gaaro ama uu ixtiraamo waxa weeyaan dawaa wixii qofku weyn looga baahnaa looga baahan amalkii wanaagsan ee qofku weyn looga baahnaa looga baahan waxa loo baahan yahay in waqtigeena nidaamsano maadaama daqiiqad kasta oo ku soo marta maalinta qiyaamada la weydiinayo ورسوله عليه الصلاة والسلام لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أدوه كمسؤول أيه ما أنت قيامة إنه دقاقه إلا أفر لو يديو أفر تاوح كمدها وقت جيسي يا عمر جيسي وقت جيسي أو عمر جو كتشرو وحكرا سجارة لو سي ويدين يا وعن شبابي فيما قبله لأن يرنبدي سي وحقوكو baabiyay ama waxa uu ku baaliyay dhalinyarnimadiisa marka qofka dhalinyarnimadiisa ku baaliyeeya waxyaabaan akhridiisa anfacayn waxa ku noqonaysaa maalinta qiyaame khasaare iyo mid ka murugoodo waqtiga fursadda qaaliga ah ee dhaaftay qofka dhalinyarnimadiisa ku bixiya wax wanaagsan iyo cibaado iyo amal suuban waxa uu noqonayaa qof marka ka faa'iideystay waqtigiisa waqtigu walaalayaal
وشيء آدي آدو قالية وحله لنا سجى قوي وهذه هذا الوقت أغلى الوقت كالذهب وقت هو سيد الذهب كأوكله صح معه الوقت أغلى من كل شيء وقت الشيء كستوي كوي وايو ذهب يلا عكت يأدونك يوحل هيا بوحل وصل يا محي وقت هذا الوقت هي مهلس وحنا مركز شيء قدرنا بإذن الله تبارك وتعالى إنه عن ديرين وآدي آدي سوكوبية جدول كطالب العلمي وفق أرضي مسؤولية قارة صارا مسؤولية دا قارك إيه صارا أي اللي بهين الضريمة ما دام تدخل وكدوية هاي سوى قف وحبرتي وحياة بدن قرني وأرضي قرآن كحفظية كتب تركتها isaga waxa looga baahay marka dadaal dheeraada oo uu ku bixiyo sidii uga faa'iideysan lahaa maxay bisha Ramadaan marka inagu aad iyo aad u soo koobayna waxa aynu isku baraarujin lahayn jadwalka looga baahan yahay qofka ardayga ah ee culumta shariicada dhigta maxaa looga baahan yahay inuu markaas qabto bisha Ramadaan jadwalkiisa iyo sidoo waqtigiisa u nidaaminayo ayaa looga baahan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagaashiyo bisha Ramadaan oo de waqti imika inooga harsan yahay waxa lagaga baahan yahay inaad horta nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo gaarsiiyay aad ku mahadnaqdo aad ilaahay ugu mahadnaqdo subxaanahu wa tacaala isla markaana mahadnaqa waxa kamid ah maalmaha Ramadaan daqaa'iqa ruuxaaniga ah inaad kaga faa'iideysato wax aad ilaahay agtiisa wax kaga helayso camalada marka la qabto bisha Ramadaan qaarna waa kuwa bisha Ramadaan ku gaara sida soomkii Ramadaanta oo kale oo waajiba qaarna waxa weeyaan acmaal marka horeba mashruuc ahayd oo lagaga baahay inaad kordhiso oo ziyaadiso waxa kamid ah qofku inuu sadaqada la baxo mar walba waa mashruuc laakiin bisha Ramadaan way si fadli badan waxa kamid ah qofku inuu qaraabadiisa xiriiriyo mar walba waa mashruuc bisha Ramadaanna way si fadli badan waxa kamid ah al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar inuu qofku isku dayo inuu wanaaga dadka faro xumahana uu diido waa amal mashruuca fi sa'ir sana sanadka oo dhan laakiin bisha Ramadaan waa ajir siyaada ayuu leeyahay maadaama waxa bil barakaysan lagu jiro waxa kamid ah qiraa'atul qur'aan qur'aanka akhrintiisa isna waa amal mashruuca sanadka oo dhan laakiin bisha Ramadaan waa shahru qur'aan oo bisha qur'aanka waanu si waxa weeyaan waanu si fare waanu deesiyaan ajir badan waxaan markaa ku soo koobi doonaa jadwalka qofka ardayga looga baahan yahay bisha Ramadaan horta salaadaha marka uu eedaanka maqlo waxa fiican inuu eedaanka sida uu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam uu ka daba yiraahdo waxa uu muadinku leeyahay marka laga reebo حي على الصلاة حي على الفلاح أو أراني لا حول ولا قوة إلا بالله كبعدنا وأخريه دعادي إبراهيمية دعادي اللهم رب هذه الدعوة التامة وحكى له مركا جدولك كمذا القيام للصلاة واستشعار بقوله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود إنه قفك الصلاة وإستاغه رمضان التراويح isagoo markaa isdareensiinaya qowlullaahi tabaaraka wa tacaala wa qur'aan al-fajr inna qur'aan al-fajr kaana mashhuuda salaada subax iyo salaada waxa weeyaan qur'aanka la akhrinaya waa mid markaa marag u ah qofka sidoo kale adkaaru sabaax bacda adaa'i salawaat qofku inuu ku dadaalo bacda adaa'i salaah marka uu salaada subax tukado adkaartii subax iyo adkaartii galabta inuu akhriyo yana waa laga maarmaan inuu xifd
ورد معين من القرآن الكريم، إنه حفظيه وردي معينة أو يسوي جزء أما وحزبي أما أنت أو يسوي كري إنه حفظيه ينا ولا جماعة. الانتظار إلى وقت الإشراق مع كتاب الله تعالى، ثم صلاة ركعتين الإشراق، صلاة الصبح كبعدي إنه مركز السوق إلا أنت عدد أي صباح كبعدنا marka ay cadeedu soo isagoo quraanka marka akhrisanayo oo adkaarta akhrinayo marka cadeedu soo baxdana uu labada ragcadood ee duxada uu tukado labada ragcadood ama ragcateen ishraaqna wala labada ragcadood ee la tukado marka cadeedu ay soo baxdo salaada subax ka bacdi rasuulku wuxuu tilmaamay kaleey salaatu wasalaam qofka labada ragcadood tukada in loo qorayo umro dhameystiran adigoo umro tagay oo kharash ka bixiyay iyo waxa weeyaan waxa isku ajar noqonaya qofka intuu salaadii subax tukado fariista halkii uu ku tukaday quraan iyo dhikri ku mashquula marka cadeedu ay soo baxdaan laba ragcadood oo sunna ah tukada waa fadli aad iyo aad u weyn oo baahan inaan la dayiin waxaanu markaa imika tilmaamnay salaadii subax qofku inuu soo kalaho salaadii subax oo uu jamaca ku tukado ka bacdina uu quraankii akhriyo ka bacdina cadeedu markay soo baxdo laba ragcadood tukado marka uu qofku hadii uu markaas ka seexan karo iska seexdo waxa imanaya barqadii ad-duha qofku inuu markaa barqada hadii uu seexdo uu marka uu tooso uu tukado waxa weeyaan marka hore inuu quraan iska akhristo masaajidka uu iska yimaado waxa kaloo fiican inuu ku dhex daro tafsiirka akhrintiisa ama dhageysashadiisa ama mutaalacadiisa inuu maalinba isku dayo inuu qayb mucayan oo quraanka ka mid ah tafsiirkeeda inuu dhageysto ayaa fiican ka bacdina uu tukado salaatu duha salaadii duhada uu tukado oo rasuulku wuxuu kaleey salaatu wasalaam salaatu al-awwaabiin xiina tarmid al-fisal salaada kuwa toobadkeenka badani waa salaad waa marka waxa xoolaha waxa weeyaan ama nirgaha yar yar ay cagabiyoobaan cadceeda kulul aawadeed marka ay dhagaxa iyo ciida kulul ay cagta saaraan neefka yar cagta biyo galisa yaani waa xilliga cadceeda kululaato meelaha tobanka oo kale waa xilligaas rasuulku kaleey salaatu wasalaam salaatul awwaabiin salaada ay tukadaan kuwa toobadkeenka badan marka iyana inaan la dayicin salaada ayaa fiican waxa iyana ku xigta qiraa'atul qur'aan wal isticdaal li salaati dhuhr marka uu tukado labada ragcadood uu iska nafiso inuu qur'aan akhris bilaabo isla markaana uu diyaar garoobo salaadii dhuhr inta uu qofku masaajidka fadhiyana waxa la socota inuu yahay nin ku jira ribaadku waa maxay ribaadku waxa weeyaan waa marka jihaadka lagu jiro ciidanka furinta jooga ee aan iyagu marnaba ka bixin ee halka ku cunteeya ee ku caba ee halkaas uu fadhiyo cadawga muslimiinta ka ilaalinaya ayaa ribaad la yiraahdaa rasuulku wuxuu sheegay kaleey salaatu wasalaam intidaaru salaati bacda salaah fadalikum ar-ribaad salaad markaad ka baxdo ee aad salaad sugayso ribaadkaas ay u dhigantaa nin dhufayska ugu horeeya fadhiya oo aan marnaba ka kacayn ayaad markaasi la ajirta oo arin marka iyana aad iyo aad u muhiim waxa ku soo galay marka ka bacdi salaadii dhuhr salaada dhuhr marka la eedaamayo waxa ku fiican ardayahu inaad joogto masaajidka oo eedaanka ka horba aad masaajidka aad soo gasho maadaama de shaqo aan lahayn oo qofka madrasad dhigaana uu fasax yahay badanka xilliga qofka kale ee ardayga dhalinyartiina uu marka horeba arday hawan u shaqeeyo marka inaad masaajidka eedaanka ka hor aad soo gasho aad bay u fiican tahay oo naftaada ku tarbiyadayso eedaanka ka hor inaad masaajidka timaado marka waxaad ku dadaalaysaa inaad muadinka sidii hore u soo sheegnay aad kaga daba celiso eedaanka waxaad sameeyaysaa oo kale الدعاء بين الأذان والإقامة waxaad ku dadaalaysaa inaad ducaysato eedaanka
iyo iqaamada dhexdooda inaad ducaysato ayaad iyana ku dadaalaysaa waa saacad uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam